Sheekh Shariif Ahmed saaxiibka waa soo wada shaqeynay sida xaqiiqda ah nin Soomaaliya taariikhna leh wax badan qabtay islaamnimada iyo kuna fiican iyo wadaniyada Soomaalinimada aniga maalintii ugu dambeysay hotelkan waa isku sharxay waxaan rabay inaan madaxweyne u tartamo sida xaqiiqda ah saaxiibka aniga hore isu naqaana asigana waa yaqaana anigana waa aqaana aniga taageeradeeda هذا ما ستين تاجر ذي أنا بقول كي بقول أنا مدحونا تاجره وأنا دورنا دوّانا وأنا تعصنا على الدورتان. سلام ما ستين. سلام ما ستين سلام ما ستين سلام. maastiruntii wax kalena ma aha ummadda Soomaaliyeed anaga waxaan ka fakaraynaa mar walba qarannimadeena iyo ummadda Soomaaliyeed horumarkeena ninkii keeni kara in gacan lagu siiyana xaq way runtii asaamu taystay xaqna waa u leeyahay gacan waa ku siinayna bidilaahi kariim bani aadamkuna aragtidiisii waa kala duunaan kartaa laakiin waxa la rabaa in la aado meesha xaq jiro meesha wadanka wanaagiisa jiro meesha dadka wanaagooda jiraan meesha diinta wanaageeda jiro runtii aan inta ban waa ku aaminsanahay inuu wanaageedana uu leeyahay hoggaankeedana uu leeyahay qiimaheedana uu leeyahay karaamadeedana uu leeyahay heybadna uu ilaahay u siiyay marka idinku aad u mahadsan wixii la soo maray waa la soo maray hadda waxaan rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ka baxdo dawlad wanaag inay gaarto wixii magaalada laga soo maray meeshii laga soo bilaabay ilaa asmar hadda ma tirin karno runtii laakiin haddaan maagno inaan tirino wax badan aan ka sheegi karnaa marka idinku aad u mahadsan meeshana waa lagu daahay waxaan rajaynaynaa berito in ilaahay natiijada tii ugu habooneed oo ummadda Soomaaliyeed meel ku gaari lahayd ilaahay ka dhigo waxaan kaloo rajaynaynaa saaxiibkay inuu 40 sano kuwii asigana sharaf badan dood u gaaray mid ka badan uu ku gaaray in ilaahay uga dhigo ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inay nabad iyo uu ku gaaray in ilaahay uga dhigo ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inay nabad iyo walaalnimo iyo wanaag isu niyooto